وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم رئيس الوزراء دولة فدرالك الصومالية وزير ردا دولة فدرالك حلبانada dawladda federaalka wasiirada iyo xildhibaanada dawlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed shacabweynaha reer koonfur galbeed gaar ahaan dadka shacabka ee reer baydhabo waraysiinka salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعد السلام جيكا ولبا شرف لناها إنه سنين كوية رئيس الوزراء وسئي وفدي سهوكا ميو كوية مقالة بيضبو أو عاصمة kumeelgarka koonfur galbeed ee koonfur galbeed habooqada waqti badan niil roogi doono wal badan oo reer koonfur galbeed baahanayeen oo ilaahay raqoodi doono yaa geedka martinina ra'iisul wasaaraha hada waayaan iyo wafdishay oo ilaahay walilana ra'iisul wasaaraha dawaaw isiin waysan lana dadka reer baydhabo iyo ma hasantiin hada waayo ka fayle iyo sida faylaysan hada waayteen wafdiga ra'iisul wasaaraha iyo wanaagii sharafta lasiinka kasaay oo ay dawlad jeelaanta dawladnimada wanaaga soo dhaweynta sooriyada ixtiraamka faylaanta walisin dalataan tiilasiinka kasaay sida kama santiin insha Allah oo ilaahay dadka reer koonfur galbeed wali tiigsadayana horumar iyo dawladnimo iyo barwaaqo iyo bas iyo amni iyo cadaalad iyo horumar iyo tiigsadayaan ولما رئيس الوزراء يمكن رجل هو إلهي ولا لاري واجد تكون غيركم فوق البلد يومباهن عيان ودولة سيدين دولة جيل إنه ينصوب بيدهم إن شاء الله هو إلهي ولا لاري واجد أريد بالشهاي لمجريدا كوريت عظمات كثير والبرشارة كوريتا سيدان رأسي أرضيدي جامعة يشكال كنوغان ومركة تسلم سرعوه كان بدأين بكرة كونفور قلبه بقول كيلو تضوات عندنا يرو شغل عاد جرته شغابور نورس يسوق يدون إن شاء الله على البلد المجرة ولها كذا وعيال وين كمان نجاي في الوزراء دولة فدرال كسوماليا أو سوستيشي بوان سدي فرماركا إيو دولة نمدا الصوماليا إنه سمير كسر يهود الديرسي وناجي إيو صومالي نمدا إيو سكهرك صوماليا نفوشة غيره تيسو الدين هتنا صوص كوي دولة جورات الدرمودة شركين فراي يدبو يشيسيتي يدبو دسكي دولة درمودة يا وسوا عمرنا عن قبلنا يا صوص كونفور بالبيت كوي بيدبنين كوي كيف يهذا الناس يرز الوزراء ملما هذه مسجد هذا يبدأ يصير هذا ما سنتين هذا وياه كفاية هاي هذا ما سنتين بدنا رئيس الوزراء هذا واو بيدبها كذا واو كونفور بالبيت هكذا واو دad kiinjeel haka waaw dad dawladnimada jeel haka waaw dad dawlad falo haka waaw dad midnimada Soomaaliya dawladnimada tiigsada reer baydhabo jannaay siin salaami
نبدا هرقلا بريدة ايد يا ايد يا انك ما تنتين سيدة السورة دلي حينا وينتين رير بيضهبو جماعي سين هلاوي إذن يهلوتنا إذن يهلوتنا رير كوفر قلبت سوماليا إذن غودية جرتين رير كوفر قلبت سوماليا إذن غودية جرتين غوديوكي يالي سنكفر إذا مانتا reer koonfur galbeed inay iswaraysannayaa inkooy reedna sogaal soor wansuuse ee aamufadee gurigii barwaaqadaay baydhaboy ma nabad baa baradii masagadoy baydhaboy ma nabad baa beryaan kala maqnayne baydhaboy ma nabad baa isha biyaha kululiyo bardihii ku caanaay baydhaboy ma nabad baa bulsho nabadda jecelaay baydhaboy ma nabad baa waxaan u mahad celinayaa madaxweyne cabdicasiis laftigaran oo sida dawladnimada loo bilaabay in halkan laga oogo markii uu madaxweynaha noqday kadib waxaan u mahad celinayaa madaxweyne cabdicasiis laftigaran oo ammaan iyo sharaf mudan sababtoo ah sida uu u noqday madaxweynaha waxaa halkan ka muuqata sida dawladnimada looga ogaayo koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo waxaa ka muuqata sida la isugu soo dhaweynayo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan madaxweynaha iyo guddoomiyena waa ku mahadsan yihiin sida sharafta leh uga shaqeeyaan horumarka dalka iyo dawladnimada waxaa aasaas u ah wada shaqayn koonfur galbeedna waxay weligeed ahayd buddigaha wada shaqaynta dadka iyo dawladda soomaaliyeed waa idinkaga mahad celinayaa waa mahadsantiin halkan waxaa horteyda ka muuqda mustaqbalka ummadda soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed oo aan sheegay waa saamiga ugu badan ee dadka iskale dadka soomaaliyeed maadaama ugu yaraan 75% shacabka soomaaliyeed ay yihiin dhallinyaro waa idin hambalyaynayaa sidaa isugu duubantihiin waa idin hambalyaynayaa sidaa dawladdiinna u garab taagantihiin waa idin hambalyaynayaa hamuunta idinka muuqata iyo dawlad jacaylka aanna ka shaqayn lahayn sida ugu dhaqsaha badan sida aan u fur lahayn jidka isku xidha xamar iyo baydhabo haddii ilaah yidhaahdo sidaad la socotaan dawladda federaalku waxay waayahan ku mashquulsanayd in la xoreeyo deegaano ka mid ah koonfur galbeed oo ay ugu horraysa shabeellada hoose waxaan madaxweynaha iyo dawlad goboleedka koonfur galbeed uga mahad celinayaa doorka mugale oo ay ka qaateen inay dib u xoreeyaan deegaanadaas oo aan rajeynayna mar dhow madaxweyne cabdicasiis inuu u guuro magaalo madaxdiisii uuna halkaas ku shaqo gala haddii ilaa yidhaahdo halkan waxaa ka muuqda dad soomaaliyeed oo isku tashaday ka shaqeeyey amnigooda dhisanaya magaaladooda jecel dawladnimo dawladda waxaa laga rabaa inay garab istaagto
sidaas daraaddeed ayaan waxaan soo kaxeeyey hay-adaha federaalka oo aan rabo inay idinkala shaqeeyaan caafimaadka waxbarashada dibudhiska dalka amniga iyo sidii dhallinyarada faraha badan halkan joogta shaqo loogu abuuri lahaa haddii ilaa yidhaahdo meel walba waan ku soo wareegay dalka soomaaliyeed mar walba oo dhib dhaco waxaa taagan oo isu soo baxa dhallinyaro soomaaliyeed mar walba oo dadka soomaaliyeed ay culays dareemaan waxaa soo istaaga haween iyo culummo soomaaliyeed mar walba oo dhib dhaco waxaa soo baxa soomaali tiraahdaa waxaan rabnaa soomaalinimadii waxaan meel iska dhignay oo aasnay qabyaaladii iyo qabiilkii qofka jooga koonfur galbeed iyo qofka xamar jooga iyo qofka dhuusamareeb jooga iyo qofka beledweyne jooga iyo qofka boosaaso jooga kulligoodu waa dad soomaaliyeed soomaalinimada ka dhaxaysa qabyaaladna ma ogolin mana ku shaqayn doona qabyaalad reer baydhabana waxaan rabnaa inay hormuud ku noqdaan soomaalinimada waxaan rabaa inaan idiin sheego muddadii koobneed oo dawladdeenu jirtay waxaan la kulannay caqabado badan laakiin waxaan joognaa meel aan dhihi karno waxaa muuqda iftiin dawladeed jid dheer baan soo marnay godad iyo buuro leh mugdi ah iyo gudcur qaybtii iftiinkaan u soo baxnay laakiin in lasii adkaystaa la rabaa ogow culays walba oo dawladnimada loo mara macnaheedu waxay tahay inaan gacanta idiin gelinno dawlad ka dhib yar midda annagu hadda aan joogo culays walba oo la maro waxay tahay in idinka jidka aad mari lahaydeen laydiin siin xaaro culays walba oon marno macnaheedu waxay tahay inaan rabno soomaaliya ka duwan soomaaliyada maanta aan joogno culays walba oon marno waxay tahay inaan raadinayno idinku inaad heshaan mustaqbalka cabdicasiis iyo aniga iyo guddoomiye waan hellay mid ka wanaagsan laakiin taasi si ay u dhacdo dawladnimada soomaaliyeed iyo horumarkeeda dhexdhexaad kama noqon kartaan ma daawan kartaan idinkoo u kala jeeda qalad iyo sax ma daawan kartaan haddii dawladnimadiina laydinka qalleeciyo ma ilaashanaysaan dawladnimadiinna ma ka shaqaynaysaan idinku ma ka shaqaynaysaan sidii aad idinku awoodda mustaqbalkuula wareegi lahaydeen anigoo la geli doono wadahadal ballaaran beesha caalamka oo dhan oo maanta halkan isugu imaanaysa oo baydhaba ay soo dhoweyn doonto sida aniga ii soo dhoweysay madaxweynihiina kala hadli doona waxyaabaha uu rabo inay dawladda federaalka ku caawiso aan aaminsanahay inaan shaqooyin badan halkan ka qabanayno waxaan ku bilaabaynaa marka hore ballanqaadka ugu horreeya oo ah in dhallinyarada reer baydhabo halkan joogtay ku farxaan in laga bilaabo maalinta beriyaha dawladda federaalku ay ka shaqayn doonto in la idiin dhisa garoonkan waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baydhabo koonfur galbeed waa mahadsantiin